السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي جالس كسر نقد ونكسن وولاشين منطق عناد iyo mar kale to ayaan sa u jooga soo laba kaclay oo ogtihiin ayaan ta mashquul iga batay iga raali noqda fiidiyosheen hadda ka bacay sidii u sii socon doonaan hadii la yiraahdo haday noqoto sida hore iga barata channelka wuxuu ku saabsan yahay skin care, hair care iyo family care. marka skin care iyo hair care aad baan uga gaabshay waa la socotiin xaaladeyda ayaan tan aad baan u mashquulay. marka waxaan rabaa inaan hadda xooga soo saaro insha Allah idinkan ayaantan xooga kasto isoo duceeyay ducada xaqiina waa ayaantan iska caajisanahay. marka asxaabteeda qaaliga isku soo noqdo wanaagsan waxaan rabaa inaan maanta wax yar oo gaaban anoo rabo inaan ku dheeraanaynin ruuxantii meeshan waxaan rabaa inaan ka hadlo yani dumarka markii hore waagi hore waxaan leeyahay jiray why sabab ay ku dhacday in dumarka sidaas oo dhan loo dulmiyo, macnaha maxaa qasbi kara in dumarka la dulmiyo. marka anoo muddo badan baaraya oo macnaha marka sida hore loo yiri waxa la yiri hadii oo aragtid qof inuu soo oynayo waxa la dhahay qofkii kale tan inaad dhageysatid waaye. markasta aniga hal dhinac aan u janjeeri jiray waaye dumarnimada ay qaali jirtay hadee la yaab male. marka mar walba marka waxaan isku dayi jiray inaan dhanka dumarka u janjeero, laakiin waxyaabo badan aan isaan wax u falanqeynay moogtahay sheekada haba mid kula aadaysa. marka waxaan ogaadayba meesha dulmiga rag iyo dumarba waa loo wada siman yahay oo ragga kaliya ma lahan. waayo waxyaabo badan ayaan arkay maalin dhaweyti horta hadaan ugu cusubtaa fadlan subscribe naga hilmaamin oo aragtay ilaa hadda kulmaana gaarin aqyaaray ma aqaan waxaan ugu haysatiin waxa waaye dadaan waxba tayala inii soo gudbin xataa dhacdhac waa iskaga siiseen. marka walaashina ka baqaylina aniga waxa waaye channelkayga waxaan jeclay in laga wada faa'iido, marka idin kale ka faa'iidin aan ka faa'iido markaasi dhiirigelina way noo tahay adna firiyo ku tahay. marka lana share garay asxaabtayda familkaaga laagtuna way socodsiisaa oo ogtahay. marka asxaabi waxaan rabaa inaan idin sheego waxyaabaha qaar oo aan la yaabay aadka oo la yaabay waxay tahay dumarka yani si saa'id macnaha boqolkiiba waagi hore waxaan dhihi jiray ragga Soomaaliyeed waa aaba xun boqolkiiba 95. waayo waxaan ku qiimeyn jiray markaan 10 rag aan aqaano ama walaalay ha ahaadaan ama ilaah kuma darnaaday ama qaraabadeeda ha ahaadaan ama friendskayga ha ahaadaan ama dad adiga isnaqaana ha ahaadaan ama saaxiibaday nimankooda ha ahaadaan markaan 10 qof aan aqaano 8 aaba xun ku jiro 2 le ka fiican. marka saas darteed ayaan ka tusaale qaadanaya boqolkiiba 95 ayaan dhihi karay. laakiin markaan dhihi jiray boqolkiiba 95 horta dumarka Soomaaliyeed maasha Allah mid bay ku amaanan yihiin boqolkiiba hal ayaa laga helaa hooyo xun. marka runta laga hadlo boqolkiiba hal xun ayaa hooyo laga helaa, laakiin boqolkiiba 65 waa naaga xun waa dumar xun. waayo waxay ku xigeen waa horta kow ayaga xaasid isku ah, labo nimankooda xaasid ku yihiin oo waxa ragga ka carar siinayaba inay ubadkooda nacaanba ayaga boqolkiiba 65 ayaga u sabab ayaan dhihi karaa. maanta dad badan ay la yaabi doonaan ay doonaan maandeeqa maxaa ka qaldan dumarka maxaa ugu soo jeesatay waxyaalo tusaale yar ay sheegaya. maalin dhaweeyay gabar ayaa aroostay baraha bulshada dabcan waa wada taqaaniin hada online la dhahaa way aroostay. marka Allah ya raxmo ninkeeda Allah u naxariistay muddo 8 bilood miya 9 bilood laga joogo ayuu geeriyooday. marka ninkeeda wuxuu dhashay wiil iyo gabar ilaahay kuma darnaadee. marka waqti emotionalka qofka uu ku jiro ilaahay kuma darnaad xaaladda uu ku jiro markaas inuu qof tacsi gashay ani been ku sheegay marka xanuunsanahay waxyaabaha aan sheegaya dhan boqolkiiba 95 xalaba kama jiro. waayo markaas emotionalkaaga wuxuu ku sheegayo qof xanuunsanaad tahay qalbiga ka xanuunsan. marka waxyaabaha ku hadlayso dhan qasab ma aha boqolkiiba 100 inay is yeeshaan qasab ma noqon karto. waa laga yaabaa waxyaabo markaas ka dhabaysid inay jirtaan. marka gabadhii markuu ninkeeda ka geeriyooday hooyo yar oo dhalin yar oo da yar oo ilmo yar haysata oo odageeda ay jecleed ka geeriyooday dabcan emotional way noqonaysaa. aniga mar ma guursanayo ninkayga xoolo caynaan raba inaan jannada ugu noqdo qararaac emotionalka waaye. laakiin calafka anaga ma xukunno waa haddii gabadhaas loo soo qoray inay 10 nin ay guursato ama 100 nin ay guursato waa guursanaysaa idinka waxba kama bedeli kartiin. maantana hadda aniga haddaan dhahayo aniga ma guursanayo ilmahayga aaboodina ahayn mar raba ma guursanayo ma yeelayo ma ka dhacay haddaan dhahayo waxa loo maxfuud ka qoran yihiin aniga inaan intaan tago ilmahayga daadiyo mid kala guursado ilmo kale u dhalo macnaha wax qoran anaga waxba kama bedeli karno. laakiin waqtiga emotionalka qofka warkuu yiraahdo in warkii u looga dhigo ma fiicna. marka gabadhii adiga waxyaabo emotional badan ay sheegtay marka way ka soo baxday. dabcan waxyaabaha qalad yar way gashaa waxna bilaadan qaldan waa ilaahay qofka qalad uu gali karaa laakiin qaladaha yar ay gashay qaladaadkii markay gashay
adiga gabadha dib ay u guursatay aroos weyn ay dhigatay nin ay bile kuma darada waagi hore odageeda may soo bandhigi jirin ilaa kuma darada ninkan aad u soo bandhigtay aroos weyn ay dhigatay yani waxyaabo aan looga baranaysa samaysay ilaa kuma darada sida meherkeeda kale way soo bandhigtay waxyaabo badan marka waxaa la yiri anigu ma ogi laakiin baraha bulshada waxaa isqabsatay gabadhu markii odageeda uu dhintay ayay baxday wadankii ay aaday caruurteeda ay geysay saan ku maqlay inay runtaa inay beenta aanay ma sheegi karo laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo qaabka ay dumarka u dulmi badan yihiin iyo qaabka ay qurbaha iskaga dhigan inay ayaga leeyihiin aan rabaa inaan inii taabto gabadhi way baxday ilmaheeda geysatay sida la sheegay hooyadeeda u geysatay hooyada markay u geysatay way soo noqotay way shaqaysatay marka gabadhi markay shaqaysatay kabacdi calafkeeda heshay way guursatay okay qalad ha noqoto waxyaaba qalad ha samayso laakiin muhiim gabadhi may sinaysan guur xalaal ay gashay markay gashay ilaah kuma darnaaday waa lagu soo dhigay adi muddo midha 20 beri ayadaa social media haysato subaxii markaa soo kaco oo aan ilmaha iskuulka u dirsado inta iskuulka u socda fiiriya maagaya 100 maalin dhaweyd waxaan ka tiriyay mindha almost 66 qof oo life ah oo waxaan ka tiriyay oo ilaah kuma darnaaday oo ayada bis looga hadlayo lifekaas ayada bis loo soo furtay waxa lifekaas soo furtana hal nin ma ku jiro waan dumar bis hal nin kuma jiro inta lifeka soo furatay 66 kaas maanta aan ka tiriyay waa wada dumar gedigood way soo furateen hal qof oo xataa nuxur leh wallahi inuu ku jirin gedigood haa ilmaheedii bay tuurtay naagtu waa sharbuuto haa nin bay ka dooratay alaab rageed bay ka dooratay caruurteeda war ilaahay baa kugu darane ma dhahaysin gabadhan riisankee caruurteeda ee u geysatay maxaa ku sababay waxaa laga yaabay in odageeda aniga waa koray qolka midaan koray waxaan ku dhahay soo lagama yaabaan ku dhahay ninka dardaarankiisa inuu ahaa indha walaalay haddii aan dhinto at least xaq baan isku leenahay caruurta iiga ilaahay kuma darnaaday wadanka iiga kaxee oo haddaa rabtid inaad caruurta wadanka aad u weysid wax qarasha ilaa ninkii soo biili lahaa waa ka dhintay ilmihii waa agoon aniga haddaa tago caruurteeda aan wadanka aan geysto ilaahay nagama qaadi caruurta aabahood haddii maanta wax gaaraan waxay noqonaya caruurta hooyo aaba inaan u noqdo marka caruurta wadankii haddaan geysto waxaan u baahanahay waxaan caruurta qoto duruna u baahanahay waxaan ciyaalka ku biishaan u baahanahay marka waxaa laga yaabaa in ciyaalka inta qof u geysto ilaa kuma darnaaday markay ayaan joogtaba inta imaado aan shaqaysto xoogaa yar aruursado hadan ciyaalkayga halkaasna ammaan bay igu yihiin marka waxaan ku dhahay soo lagama yaaba gabadha inay ninka dardaarankiisa uu yahay soo lagama yaaba marka hore inay ku guda jireen waayo hadda caruur haysataa ilmaha abood mar walba waa ka wada hadalnaa caruurta in wadanka laga kaxeeyo annagoo tada ku jirta hadduu qofkeen mid wax gaaro midka kale caruurtii la baxsanaya oo caruurta wadanka kala meel wadan caruur lagu koriyay miyaan joognaa waa u koray qolalkii markaan qolkii u koray waxaan ku dhahay soo lagama yaabo gabadha inuu odaga la dardaarmay soo lagama yaabo inay awal qorshahooda ahaa soo lagama yaabo caruurteeda inay kala baxsanayso wadanka oo caruurteeda maya caruurta waa yaryaryihiin diin uma raadinayso okay caruurta waa yaryaryihiin diin uma raadinayso laakiin maadaama caruur waa aan naqaana 10 sano cunuga hadduu qurbo ku gaaro inuusan kaa yeelin inuu wadanka ka tago annaga dhan waa wada ognaa caruur waa wada haysanaa 10 sano hadduu cunuga qurbo ku gaaro inuusan wadanka uusan kaa tegaynin uu ka waxaynin marka soo lagama yaabo hooyadaas inay intay fakartay caruurteeda uu odaga kala dardaarmay maya la yiri haa nimanka naagaha burursana tahay miya waxaan ku dhawaad aniga burur iyo waxa maahane kala saara naag gabadhan ninkan waxa la leeyahay caruur buu soo dhalay 7 caruur ka soo tagay ayadoo guursaday okay waxa kala saarteen ninkan qalad ku sameeyay iyo ayada qaladkay samaysay iyo waxa kala saarteen caruurta maxaa u dana aniga hooyo fakaraysa u arkaa hooyo aniga maanta haddaan tago inta caruurtayda aan geysto wadankii oon dhawaana caruurtayda wadanka inaan ku koriyo ma rabee wadankaasaan rabaa inaan ku koriyo laakiin xoogaa qarashkiina ii saamixi weyso inta imaado xoogaa ka shaqaysto haddaa calafkayga helo aan guursado maxaa wasrog macnaha maxaa qaldan okay aniga ahaantayda ma guursan lahaa nin ciyaalkiisa intuu soo daadiyey kasoo tegay haddaan guursadana ilaah kuma darnaaday sida baraha bulshaha ma keeni lahaa oo saa loo bubuuniy ma u bubuunin lahaa maya laakiin qof walba ra'yigiisa asagaa iskale ayada waxay samayn lahayd qasaman in aniga sameeyo aniga waxaan samayn lahaa qasaman in ayada samayso taas ra'yigeeda waaye marka qaladkaas ee gashay darteed miyaa waxaan ku leenahay caruurteeda tuurtay hooyo caruurteeda tuuraysa ma jirto especially hooyooyinka hadda anaga aan ognahay hooyada haddii macnahii laga bedelo ma sheegin anaga boqolkiiba kuu sheegay hoblaha soomaalida waxay ku ammaanan yihiin boqolkiiba 99 waa hooyooyin wanaagsan marka runta la isku sheego boqolkiiba hal qof aa laga helaa hooyo xun انت كل هويدا حتى wareegtay isla wareegtada ilmaheeda way jeceshahay oo wax u fiican ay u raadinaysaa marka islaamahaas waxay ilmihii waxay ka dooratay alaab rageeda ka dooratay qararararara
qolkii marka u koraan ku dhaawar heedhahay soo laga yaabo inay waxaan ay dardaaran uu odaga u fuliyo inay tahay soo lagama yaabo ilmaha inay qorsheeyaan inay wadanka ka kaxaysa ma ilmaha waa yaryar yihiin waxaan ku dhahay ilmaha hadday yaryar waxa laga yaaba ilmaheeda inay wadanka soo koraan oo dhaqanka usoo bartaan oo af Soomaaliga u bartaan oo dadkeeda ay barto soo lagama yaabo ilmaha inay waa aragna wadanka lagama kaxay kara ma yaa la yiri naagta la jirta waxaan ku dhahay waraanay naagta ma aqaani maxaa ugu jiraya laakiin soo lagama yaabo qofkan duruuf ay haysato ma duruuf ma haysan kara duruuf haysato maxay u guursatay hadday guursaneen maxay sameyn lahayd gabadhu gabadha calafkeeda hesha way guursatay waxaana loo adiga waxba kama bedel karto looxul maxfuud ku qoran tahay inay guursato okay aniga marka ra'yahantaysa u arkaa aniga ra'yaheeda waxa u arkaa hadday intay hooyadii baxday ilmaheeda wadankii geysatay ayada hooyadeeda u geysatay la yiri hooyadeeda ayada dhashay u geysatay aniga hadda markaad hooyada alla yaa raxmo way dhimatay ilaahay yaa u naxariisto laakiin maanta hadii oo ilaahay iguma keeno dhibaatadaas qof kasta muslim inuu ilaahay ka hayaan rajeynaya ilmahayga aaboodna ilaahay u deysto idinkana aabiyaashiin ilmihiin aabiida ilaahay inii deysto laakiin hadday maanta dhibka saas kale qabsan lahayd de qofka ugu dhawaan ilmaha u geysan lahaa walaalahay baan u geysan lahaa walaalahay haddii la waayo qof adiga aan isdhihi kara maanta ma kasoo wada tegi lahaa maya laakiin hooyaan ahay dhiban marka haddaa ciyaalka intaan geysto oo aan damco inaan shaqaysto ilaa wadankaana laga shaqaystaa wadankii u aragtay shaqa ma taalo marka haddii aan rabo inaan xoogaa yar isku aruursado carruurtii qof aamina waan u geysan lahaa walaashayaan u geysan lahaa walaalahayaan u geysan lahaa yani isii fiiriya waa dhihi lahaa waayo waxaan saas u sameyn waxa waaye inta haddaan imaado hooyi aabbo iskuma noqon karo been bay isku sheegaan dumarka inay dhibaato badiin waxa ku sheegaysa been bay isku sheegaan mid kore waxay tiri adiga haddaa waxay tiri aad tahay daciif aad tahay annaga hooyooyin waan nahay tiri ilmaha hooyii aabbaan u nahay wadan horumar lahaa joognaa ilmaheennana waan korsanaa waa ognahay ilaah baan kugu dhaarshay ma runta la isku sheegay qurbaha ma macnaheeda laga bedelay yaa waa hooyada ilmaha intay kirida ka bixiso oo biilka ka bixiso oo ilaah kuma darnaada ayaga dar yeesho oo haddana intay guursato oo haddana guur kale ku mashquulaysa yaa waa runta ma la isku sheego waa aniga yurub ma sheegi karo yurub cayra waa laga yaabaa okay kama soo qaada cayra qaadatay ilmaha cayra ku qaadatay okay ilmaha wadanka ma rabtay inay usii kuusii joogaan forever dadkan waxaaba u malaysaaba inay wadanka degeenba inay ayaga leeyihiin oo moodaaba waxaaba ugu daranba dadka geedka hoostiisa ku dhashaa ugu daran walaalayaalow wadankan anaga ma iskelin haddana waa aragtay wadanka waa sii xumaada waxyaabaha laga ansixiyay kulli anaga dhan waa la wada soconaa marka aniga hooyada intay ilmaheeda geysato waa aaminsanahay inay hooyada carruurteeda kasoo tagto ma ahan laakiin hadday maanta daruuf ay u geyso ay rabto inay ciyaalkeeda u shaqaysato intay wadankii geysato intay xoogaa u aruursato ay tagto haddana soo shaqaysato xoogaa markuu businesska xoogaa ka daciifaba intay imaado xoogaa shaqaysato haddana u noqoto waxba kuma jabna carruurteeda waa hooyo fakeraysaa dhihi karaa waa hooyo boqolkiiba boqol fakeraysaa dhihi karaa laakiin hooyada inta ilmaha intay ku hayso been haddana isku sheegaan single mother wax ka fiican male single mother waa hooyo adag horta been ma ahan single motherka waa hooyo adag waayo dhibaato ninka ku haya laga yaaba inay u dulqaado weyse ay ka baxday laakiin taa macnaheeda maahan single motherka wax fiican maya gabadha runta isku sheegno macnaha single motherka anaga waxaan nooga dhigaysiin single mother waa wax fiican ilaah baa kugu dhaarsheeyaa waa hooyada diidayso in ilaah kuma darnaade nin fiican ay haysato oo ilmaha la korsada oo ilaah kuma darna biila oo usoo shaqeeya yaa waa hooyada diidaysa maya single mother wax ka fiican male naagaha la qabo iyo naagaha single motherka fiican kulligood waa iskugu sheekeekaan waa been hal xaba kama jiraan anaga rabaan inay been iyo barambagaando meesha nagu hayaan single mother meel uu ku fiican yahay ma jirto runta markii laga hadlo okay nolosha hadday kugu xumaato inaad nolosha single mother ka noqotid ma habboon tahay yes in ilaahay adduunka wuxuu u baneeyey in lagu kala adduunka wuxuu u weyneeyey in lagu kala qaraabto hadday isfahmi waayo lagu kala tago laakiin taa macnaheeda maahan wax fiican inay tahay yani oo dadka lagu dhiirigeliyo dadkan dad ku jira bahalka especially weli gabdhaha Yurub jooga waayo gabdhaha America jooga way ogyihiin single mother waxay tahay runta markii laga hadlo qof jecel ma jirto inuu hooyo ilmo kaligiis koriyo aniga hadda maanta ma jecel ilmo kaliga inaan koriyo waa kaliga u korina I don't want inaan kaliga koriyo okay duruufta hadday ugu qasabtay yes ma korinaya yes waa korinaya aniga hooyada ilaah u naxariistay single mother ay ugu soo korisay ilaah kuma darnaadee maanta way jeclaan lahayd qof inay aabahay ula korsado ilmaha la koriyo way jeclaan lahayd runta markii laga hadlo single mother ugu korisay may faraxsanayd hooyo rabta ma jirto ay soo rafaad anaga hooyadan aabay hooyo noo ahayd ayadaa guriga noo soo shaqayn jirtay ayadaa na korin jirtay ayadaa wax walba ayadaa noo samayn jirtay ayadoo daalan ay haddana dabka noo shidi jirtay marka runta markii laga hadlay single mother wax fiican ma ahan yani ma jiro qof duruufa kugu kalifaysa ma ahane haddayse duruuftaas ay jiri lahayn qof jecel ma jiro inuu single mother noqdo runta markii la isku sheego marka dadka waxaan rabaa dumarka meeshii cadowdil ku yihiin gabdhihiiya waxaa lagula talinaa gabadha maalinayto qadka soo kortay waxay tiri ninkii aan kala tagnay 4 caruura u dhalay ilaa kuma darnaada ninkii wuxuu leeyahay caruurta walaalay 3 beri aan haysta caruurta inay iloobaan ma rabi waxaan rabaa caruurta
نايا ما والنتاي ما نinku fura ciyaalka u ogolaanaysa ha u ogolaanin ciyaalka inuu baalka isha ku siiyo ciyaalka inuu soo arka ha u ogolaanin inuu saan ka yeelo ha u ogolaanin maya waa u diidayo hadda 2 sano aan warwareejinaya fiiri bal aqal xumadeeda 2 sano caruurta u diidaysa hadhowta caruurtaas jaal saborta looga soo jaraa bal odagaas fiiri dulmiga si loo dulminayo jaal saborta looga soo jaraa caruurtiisana xaq uma leh inuu arko inuu caruurtiisa arko waa inuu intuu maxkamad tago yiraahdo caruurta waan haysanaya 3 bari 4 bari aan haysanaya ama ayada inay maxkamad tagto ay ku joojo kareysa maahane caruurtiisa ninkaas way uga dhaartay asagana wuxuu diidan yahay inuu maxkamad tago bal fiiri dhibaatada u geysanaysa fiiri markaas wuxuu yiri waxaan xasuustaa yiri caruurtayda hal maalin baa inta la iga soo babariyaa aan la kulmo yiri wiilkayga weynka wuxuu jiraa yiri ma qaan 8 sano muu jiro mise 7 sano uu jiraa asagana dhinac kale ka hadlaya ayadana dhinac kale leef uga jirta wuxuu yiri 7 sano jiraa maalin wuxuu dhahay aan layla kulunsiiyay nin kale ugu magac darto dhahay ninka oo ayada ay guursatay ee ugu magac darto dhahay magacaas ugu magac darto bal fiir dulmiga geysanayso marka yaa dulmi u geysateen marka caruurta marka aabooda isku diiday yaa dulmiga u geysatay anaga waxaan xasuusnaa hooyadan ilaahay u naxariistay aabahan ayada wallahi billaah talaay ayada mar walba waan abtriskeena bari jirtay aabahan magaciina bari jirtay ilaahay kuma darnaad aabahan wuxuu jecel yahay bari jirtay sidoo uu ahaayna bari wax walba way nooga sheekeyn jirtay macnaha ilmaha aabooda daa u xumaysid macnaha maxaa macno kugu jiro marka dulmiga marka badanaa ragga ka sii careysan rag xun way jiraan oo ayaga go'aansaday inay xumaadaan laakiin inta badan 60% ana waxaan dhihi karaa dumarka ayaga go'aansaday in ilmo kaligood ay koriyaan kaligood ay ku noqdaan war haddii la kala taga xataa ilmaha waa la korsadaa dadka caalamka إلى كم درada عرب عجب إلى كم درada أمريكان مكسيكان والإسفرا المين ولا ولا كرصدا محا سوماليد قاس كوا ويا ما مكتوب حني جري نمك سوماليد قاس محا كوا إلا دمر كيا برفشة إن عكوضو ومسير إيسا سي جواد أس مسير واحد الجواد أس مايا نكاس أنا وحاملة أبو ناقوسد أوكي مسير كاس أديجا إسكالي داس يو جويس يعني أنا مسيرتي جورجا ودو مسا وكتكتي نينكا وودو قادة ويسا واسكفرتي لكن عيالك دنبي جن كلين وات كان الدنبي كلين عيالك ما الدنبي بكلين دنبي كمالهن مركب واحد ليه كرا دو مركو دولميج إسكداية إن واحد كلا موضوع كلام عن اللي دونا إن شاء الله فيديو كل حاجة عن اللي دونا موضوع عن كهلا وحنا هاي دو مركب رجع مركب عوانات ويدي سنين أو جورجا إلى كم درجة عوانات ويدي سنين إلى كم درجة سن حريص الأول ديسو وهاي هذا ترى ما أنت هذا ترى أنا بين كل شيء ما تقدر هذا وعنده المحكمة يقرب ولا لو مليان ضمن الله هتوده وحكتوها وكسرتها وأي مانا لكن هذا دوريا نعم لا كوكو تالي المها هذا إلى دلائي كان المها هو ما ودانده نا كرو ليه المها بدأ قدر دارفتي يسي وحي كل حرة الدواجة أودي ستة كل حرة إلى كم درنا هذا وحيابة جرو مركب موضوع كلات إنه نقف على مرة موضوع كلا أوجه هذا ليا مركب ما أنت وحرب إنا أيدير إنك سيو دمرك مركي أدرجة كلا تكتان ظلمي إسكداية والظلم واحد ودين ilmihii biya u diidaysiin in la ku kor seerta markay qof ilmihiisa u diiday inuu kula haysto oo kula korsado ilmihiisa arka u diiday oo xataa magaciisa ka bedeshay sidee rabtaa inuu kula korsado si wanaagsan kula korsado maxaa qofka asaga juwaan miya waraanayo dumar oo ilaahay ka baqa dulmiga iska daayo dulmigana ma fiicno waxa waaye hadii la kala tago waa la kala tagay qofkan califkiina dhamaaday haduu naa guursado waxa harta u salay haduu asaga ku xumeeyo kaba soo qaad asaga ku xumeeyay daas abtuhum asaga u taala ani qofkii xumeeyo ninka haduu xumeeyo ani asaga xumeeyo taas asaga ilaahay ani ama ilaahan ku deynaya ama waa iska cafinaya ama nolosheeda iska raacanaya ama si wajigi oo aan nolosheeda u raacan lahayn baraasanaya laakiin ina caruurtiisi nando caruurtii ma arki kartid ma yeeli kartid kuwa waxa la dhahay waxa la arkay kuwana waxay sameeyaan la yiri waa ku dhibaan waxay dhahaan maxkamaday tagayaan ilaa kuma darnada because maxkamadda wadanka joogna waa naqaana ilmaha half and half ma la ogolo ilma waalid kaligiis inuu haysto waa dalba kartaa xaqaad u leedahay inta tagtid aad tiraad ilmaha half and half haysanayna okay ilmihi half and half haysanayaan waa ku dhibayaan because intaas waxay u diidantaa inuu soo shaqaysto waa dalba kartaa okay xaqaad u leedahay okay yaa rabtaa inuu ku biilo maxaa marka ku kadeedaya maxaaba kadeedkaas ku gelinaya waxaaba awooda abow ilmahaaga korso ilaa kuma daran bishii hal mar ama labadii wiigi hal mar ama wiigi hal marna ilmahaaga si ay kuu bartaan kuula qabsadaan ilmahaagana u imaa waqti la qaado ilmahan igu biilo ilmahaagana walaala waa kaas wanaagaas aan ku kala joogno haddii uu dhaho ilmihii walaala wadankii raba inaan ku korsado wadanka waxayna because ilmihii haddii wadanka la geysto oo lagu tarbiyeeyo adiga lagu tarbiyeeyay marka wadanka ka kaxaysan hadduu dhaho ha waxa arkaa ku mid dhahay ha wadanka tu ka kaxaysta dib dama ma arkaysid ilaa kuma darnada ilmahaaga ha iska tusin ninku qaba ninku fure maxay ilmahaaga u tusaysaa ilmaha si saw kaama dhalin ilmaha bijiniya ka dhalay hadhow haddii naagtaas ay tiraahdo ilmahaas aniga kuma tusayo maba kaa dhalin baa duu ku dhaho yaa gardaran soo adigu ma gardareen
marka videoga maanta wuu naga dheeraaday laakiin waxaan rajeynaya video ku xig inaan dib aan oga hadli doono ilaa kuma darnaadee maalin dhaweyta kusoo shari garay tiktoka nimanka yani marka caawinaad weydiisanaysa soo asaga ma dhalinay qarracdaas marka videoga ku xigaan ooga sheekayn doonaa laakiin maanta waxaa rabay inaan dhaho ra'yigayga waxaan ka bedelay inay 95% aabayaasha xun Soomaalida ay yihiin nimanka Soomaalida inay yihiin waxaan maanta ra'yigayga ka bedelo rabaa inaan ku darsado nimanka 95taas nimankaas xun oo ilmaheeda ka cararay dumarka ku qasbay 50% 50% 40% 40% dumarka ku qasbay waayo dumarka markii ragga ay xumeeyaan si ay oga aarsadaan caruurtiya ku dhibaan waa si kale oga aarso hadaa inta tagtay madaxa baskoolada ugu dhufo simple way laakiin caruurtaada ka goynaysa waayo dhibaatada ninka u geysatay caruurtaada saameynaysa marka waxaan dhigi karaa dumarow dulmiga hal iska dhaafo 40% ama 50 dumarka nimanka markay ina furaan in ilmihii la inku dayaco waa waxaad adinka kaxsateen gacantiina ku samaysateen way jiraan rag dhib badan oo dumarka dhiba oo dhibaateeya oo hadii ay qabaana dhibaateeya oo hadii la joogaana dhibaateeya oo abuse gareeya oo maskaxda ka dila oo markay ka tagaana ka taga waa jiraan nima badan buuxa oo aqaanaani hebel u dhihi kara laakiin rag dumarka qaarna ayaga ayaa isku keenay waayo ayaga isku keenay dhibaatadan dhacaysa dhan ayaga isku keenay marka insha Allah videoga dambaan oga hadli doonaa video shayaan oo oga falanqeynayna ragga iyo dumarka mar dhow dood wadaagan ka soo saari doonaa uu noo socon doonaa intaan video dib uga kulmi doona waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa salaamatihiin